waa subax isniina bisha abril waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya bishana waa 23 Falastiin Axmed Imaani anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aanu idinkugu hayna idaacadeena saakana waxaa ka mid a cabasho weli ka soo yeeraysa qaar ka mida dadka ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xilli guud ahaan Itoobiya uu isbedel ka jiro. dadkii soonkan ka hadlayay uu doortay waxaa la geeyey degmooyin kale baa la geeyey dad kale oo ka yimid dowladeeniya baa la keenay marka dadkii intii badnayd waa la soo bedelay dadkii hore annaga xagga iyaga loo soo bedelina lagama qaadin meeshii dadkii shaqo-aan bay diri dhaba joogaan. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan looga hadlayay badbaadada wariyaasha oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. robabkii guga ee ka curtay koonfurta Soomaaliya oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliiska dalkan Mareykanka ayaa weli baadi doonaya nin dilay ugu yaraan 4 qof oo uu ku toogtay aroortii Axaddii ee shalay gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala ee Tennessee. qofka la tuhunsan yahay oo booliiska magaalada Nashville ay ku sheegeen Travis Rankin ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu xirnaa jaakad ama koor isagoo xagga hoosena aan waxba ka wadan markii uu rasaasta ku furayay dadka wax ka cunaya meel maqaayad ah waa berigii shalay. 3 qof ayaa goobta ku dhimatay, qof kale oo afraadna waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray kadib markii cisbitaalka la geeyay sida ay booliiska sheegeen. 2 qofood oo kale ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. booliisku waxay sheegeen in nin 29 jir ah oo ka mid ahaa dadkii maqaayadaasi ku sugnaa uu la hardamay ninkii weerarka soo qaaday oo gacantiisana uu ka bixiyey qori kuwa darandooriga u dhaca ah, taasna ay ku qasabtay inuu baxsado. booliisku waxay intaasi ku dareen in ninkan loo malaynayo inuu yahay kii weerarkaasii geystay markii dambena lagu arkay meel kayn ah, waxayna uga digayaan dadweynaha in ninkaasi oo laga yaabo in weli uu hubaysan yahay uu halis ku yahay ammaankooda. nin bom isku soo xiray ayaa Axaddii shalay 57 qof ku dilay xarun ku taala magaalada Kabul oo dad badan loogu qaybinayay kaararka aqoonsiga codbixinta Afghanistan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa VOA u sheegay in qofka bamka watay uu dhexda ka galay dad saf ugu jiray qaadashada kaararka aqoonsiga bannaanka iskuul ku yaala caasimadda Kabul. xarumaha caafimaadka ayaa sheegay in tiro 100 qof ka badan ay ku dhaawacmeen weerarka. dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira ugu yaraan 10 ruux oo xaaladoodu ay halis tahay. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. madaxa fulinta dowladda Afghanistan Cabdalla ayaa cambaareeyey weerarka oo uu ku tilmaamay mid argagixiso. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore diiwaangelinta dadka raba inay codkooda ka dhibtaan doorashooyinka baarlamaaniga iyo golayaasha deegaanka Afghanistan oo lagu wado inay dhacaan 20 bisha Oktoobar ee sanadkan. weerarkan ugu dambeeyey Afghanistan ayaa imaanaya iyadoo warbixin ay soo saartay qaramada midoobay lagu sheegay in rabshadaha Afghanistan ay galaafteen dad rayida oo ka badan 2260 qof 3 bilood ee ugu horeysay ee sanadka 2018 oo kaliya. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. kulan lagaga hadlayay badqabka wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaana sidii loo ilaalin lahaa ammaanka wariyaasha iyo sidii loogu ogolaan lahaa in ay si ammaana u gutaan howlahooda warbaahineed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo socday 2 cisho ayaa shalay lasoo gabagabeeyey. waxa aan ka wareystay kulankaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka oo iyagu qayb ka ahaa kulankaasi. ugu horeyna waxa aan weydiiyey cidda ka qayb gashay kulanka. kulanka waxaa ka qayb galay Falastiin 4 daraf ama 4 dhinac oo 3 rasmi ahaayeen dowladda Soomaaliya oo ay joogeen hay-adaha ku shaqada leh ee la xiriira arrimaha badqabka wariyaha oo wasaaradda warfaafinta ay ugu horeyso, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda amniga, wasaaradda xuquuqul insaanka iyo haweenka
iyo hay-ado kale oo maaragtay xeer ilaalinta qaranka ay kamid tahay. waxaa sidoo kaleeta joogay ururada iyo qaybaha warbaahinta soomaaliyeed. waxaa iyaguna qayb ka ahaa bulshada rayidka ah iyo sidoo kaleeto hay-adaha caalamiga ah iyo ururada caalamiga ah ee saxaafadda soomaaliya baneeya ama taageera. afartaas dhinac ayaa maaragtay si buuxda uga wada qayb galay. waxaa sheegteen in la sameynayo habraac ay ku dhan yihiin dhammaan dadka daneeya badqabka saxafiga. marka muxuu yahay habraacaasi? falastiin, habraacaasi waa runta waa sidaad sheegtay. habraac horta asalkiisu wuxuu yahay waa maaragtay go-aan ama siyaasad adduunyada oo dhan ka socota oo ay hogaamineyso qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNESCO oo arrimaha warfaafinta iyo dhaqanka uqaabilsan, oo loogu talagalay in wadamada ay maaragtay colaaduhu ka jiraan ama saxafiyiintu ay dhibaatada maaragtay ku qabaan xagga amniga ah laga hirgeliyo habraac ama maaragtay mechanism lagula socdo, islamarkaana lagu difaaco laguna hormariyo xaaladda saxafiyiinta wadamadaas ka shaqeeya. marka adduunka o dhan ayuu ka socdaa. marka nasiib wanaag ayay tahay innaga oo la shaqeynayna UNESCO in aan noqono wadankii ugu horreeyay bariga Africa ee hirgeliya mechanismkan. marka mechanismka hadafkiisu wuxuu yahay in la helo meel marka koowaad halbeeg samaysa oo yani la socota si gaara xaaladda wariyaasha dhibaatooyinka ay qabaan, qiimeyn ku samaysa dadka habraaca ka shaqeynaya ama guddiga habraaca ka shaqeynaya dhammaan dhinacyada, haddii ay ahaan lahayd dawladda iyo maamulada jira, haddii ay ahaan lahayd saxaafadda oo ah maaragtay cidda loo adeegayo, iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah oo iyaduna la rabo inay cod iyo qiimeyn ku yeelato. marka la yiraahdo warbaahinta dawladda iyo kuwa madaxa bannaan, waxaa u dhexeeya xayndaab lagama gudbaan ah oo ah in wariyaasha dawladduna inay dawladda u shaqeeyaan, wax walba oo dawladda kasoo horjeeda inay iyagu laftirkooda ay bartilmaameed u noqdaan, iyo warbaahinta madaxa bannaan oo dhinac walba oo ay dawladdu ka mid tahay laga rabo inay dhexdhexaad u noqdaan iyaguna. dawladduna mararka qaar ay ka mid noqon karto iyo maamulada dalka ka jiraba kuwa dhibaateeya wariyayaasha. sidee u heshiisiineysaan labadaasi waxyaabood oo aan isku imaan karin oo aad si guud wariyayaasha aada uga dhigteen? waa mahadsan tahay Falastiin. horta marka si guud su-aashaada aan uga jawaabo, waxa xooga la saaraya waxay tahay wariyuhu ama dawlad ha u shaqeeyo ama private ha u shaqeeyo ama xisbi ha u shaqeeyo, siyaasad gaara aaminsan ama xarun dhexdhexaada ha ka shaqeeye, wuxuu u baahan yahay in aragtidiisa dastuurka uu maaragtay siiyey qodobka 18 ee ah inuu fikirkiisa si xor usoo bandhigi karo, in uu soo bandhigida fikirkaas ku nabad galo oo nabadgelyo uu ku helo, caqabadahana laga horleexiyo. magaajida koowaad waa taas, iyadoo aan loo fiirinaynin meesha uu ka shaqeeyo ama gobolka uu joogo ama siyaasadda uu aaminsan yahay ama maaragtay yani waxa sidaas la xiriira, laakiin hadiiba xirfadiisa uu ku guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo maaragtay qawaaniinta caalamiga in lagu ilaaliyo. taasi waa midda guud. si gaar ah marka looga hadlo hadda dhinacyada shaqadu ay udhexayso oo guddiga la dhisay oo 11 xubnood ka kooban ama la isku raacay uu ka kooban yahay, waa dawladda oo ay joogaan hay-adihii. haddii xitaa dhanka dawladda ay maaragtay dhacdo in xadgudubyo laga tirsado, qaabilsanaa oo ay ahayd inay ka jawaabaan, oo tusaale ahaan wasaaraddii warfaafinta mas-uulka ah saxaafadii, muxuu ahaa wasaaraddii amniga oo haddii ciidamada maaragtay amniga ka shaqeeya iyo wariyaasha isku dhacaan shaqadaas lahayd, hay-adihii garsoorka oo wixii la xiriiray in qofka haddii la xiro ama dhibaato uu sabulo maaragtay marsiin lahayd cadaaladii iyo garsoorkii, oo dhinaca saxaafadda gaarka loo leeyahay oo hadda aysan ku jirin midda dawladdu oo ah cidda ugu badan ama matasha maaragtay u taagan qabashada xirfadda saxaafadda, oo iyaduna la rabo in laftirkooda cabashooyinkooda ay u sahlanaan. laakiin hadda guddigan oo kale oo la sameeyey cadaalad guddigan la sameeyey oo aad leedahay 4 xubnood dawladday matalayaan, 4na waxay matalayaan warbaahinta gaarka loo leeyahay. tirada marka laga soo tago haddana dhinacii maamulka guddiga waxaa guddoominaya aad tiraahdeen guddoomiye ka socda wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska. marka ma guddi dawladeeda mise waa guddi warbaahineed? maxaan magacahoo loo bixinaya? waa mahadsantaha Falastiin. horta guddiga xeer hoosaad iyo qawaaniin ayaa hagi doona. 11 xubnood ayuu ka koobnaan doonaa. 3 qofood oo wuxuu lahaan doonaa go-aanka ugu dambeeya leh oo guddi ahaan u shaqeeya, iyagoo maaragtay wadajirana go-aan kasta iyo fikir kasta ay tahay inay gaaraan, oo ah guddoomiyaha iyo xogeeyaha guud iyo guddoomiye ku-xigeenka.
dawladdu waa og tahay oo iyadaa wadanka mas-uulka ahoo maamulkii ah, sidaasay guddoomiyaha ku noqotay. xogeeyaha guud oo maaragtay awoodihiisa lagu qeexi doono labadoodaba si ay u wadaagaan xeeroosaadka ay samaysan doonaan wuxuu ka imaan doonaa saxaafadda gaarkaa, halka guddoomiye ku-xigeenkuna uu ka iman doono ururada guddoomiyuhu keligiis go-aan ma laha. sidoo kalena taladu waaba tala la wadaagaya oo ka dhaxaysa 11 maaragtay xubnood. marka wax dawladdu leedahay maaha, laakiin dawladdu qaybay ka tahay maadaama ay wadankii mas-uul ka tahay. kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan yuusuf al cadaala, agaasimaha wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska oo qadka telefoonka igu waramayay magaalada muqdisho. weli halkaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. qaybo ka mida koonfurta soomaaliya waxaa weli socda robabkii guga ee ka curtay qaybo badan oo gobolka geeska afrika ah. maalmihii u dambeeyeyna waxaa lasoo warinayay daadad ka dhashay robabka oo saameyn ku yeeshay magaalooyin iyo tuulooyin gaar ahaan gobolka gedo. meelaha uu khasaaraha ka geystay waxaa ka mid ah magaalada ceelwaq oo uu daadku qaaday. daadadka ayaa maalmihii lasoo dhaafay godoomiyey deegaanka buusaar oo ka tirsan ceelwaq, halkaa oo dadkii ku noolaa ay ka qaxeen. gudoomiye ku-xigeenka deegaankaasi aadan cusmaan cabdinuur ayaan qadka taleefonka kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyey khasaaraha roobka ka dhashay. walaal deegaanka buusaar roob xali gelinkii dambe ilaa iyo saaka maanta gelinka hore da-ayay dhibaato u ka geystay ayaa wax fara badan manaha dadka deegaanka u geystay. hadday tahay adigu deegaan hadii ballaaran oo magaalo qadiimi way dadka degnaayeen ka barakac laga barakacay meesha iyo adigu hantidii ay meesha ku lahaayeen oo burburiyeenta ka dhexeyso deegaanka walaal barakac aad badan baa ka jira iyo dhibaato fara badan roobka u geystay. marka waxaa laga barakacaya waa daad roobka ka dhashay miya mise roobka laftirkiisa laga barakacaya oo dadkii hoy iyo meelo ay kaga badaan baysan haysan? maya daad roobka ka dhashay baa laga barakacayaa. hadii dadku uu meesha ku lahaaba biyo iyo waxaa fadhiistay iyo adigu masquul iyo ceel inta ka dhexeyso biyihii laisku daray, marka daadad fara badan oo ka dhashay laga barakacaya. walaal roobkan wuxuu da-ayay bisha maarsa ilaa 10keedii hore. goodoon bay marka hore ahayd magaaladan oo roobka intaas uu da-ayay wax gaadiid ma soo galin, wax ka baxayna malahan. wixii soo galay haddana oo yarka u yeelay oo manaha ka badeec ahaanta badeecadeed saaka biyaa la tagay. marka walaal waxyaaba fara badan hadii caafimaadkiina meel musqush iyo biyihii ceelka isku daray dee caafimaadkeeda gararta wax ka dhalan karo. deegaankan buusaar haddaad bal sawir ka bixiso waa deegaan noocee ah, siduu yaalaa? deegaankan buusaar walaal waa deegaan qadiimi ah. magaalada ceelwaq hoos tago 40 kilomitr dhanka bare ka xigo. dadka way degan yihiin. adigu saaka ilaa dadka aan ka daadguraynay oo guryahooda ka qaxay ilaa iyo 230 qoys baan anigu gacanteeda kusoo tiri maanta. iyo xaggey tegayaan? dadku waxay tegayaan meelo macnaha ay roobkaas ilmaha iyo dadka yaryar intuusan roobkaas wax yeelin meelo buuroley ay tegayaan oo manaha baca ku xirteen maanta. deegaankan dee deegaan hadda bil iyo in ka badan go-doonsanaa. wixii manaha hanti ahaa oo maanta magaalo degan wixii manaha deegaankaas ay ku deganaana manaha biyo la tageen, qoysaskina ay ka barakeeceen. waxaan ugu baqaynaa manaha in oo dee wax gargaar ah ilaa allah gargaar bixiye manaha lagu tiri karo la gargaaran manaha ayaan ku baaqaynaa. kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka deegaanka buusaar ee gobolka gado aadan cusmaan cabdinuur oo qadka taleefonka iigu waramayey. mar kale ayaan dhegeystayaal subax wanaagsan idin leenahay. dhowaan etoobiya waxaa yeelata ra-iisul wasaare cusub abaay axmed oo buuxiyey booskii uu iska casilo ra-iisul wasaarihii hore xeele maryam desalem. isbedelka cusub ee etoobiya ayaa imanaya iyadoo horaantii sanadkan warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda oo si gaar ah xooga loogu saarayay gobolka soomaalida etoobiya lagu sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo caburiska dadka ay dareemayaan ay yihiin kuwa baahsan. meelaha cabashada ay ka jirto waxaa ka mida gobolka city ee dowlad deegaanka soomaalida. waryaheena maxamed colaad xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay buux xuseen cumar, gudoomiyaha xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga soomaalida etoobiya oo ku sugan magaalada addis ababa. waxa weeyen muddo 7 sano waxaa maaragtay gobolku uu keenay waxa la yidhaha dib u curasho. marka dadkii maaragtay dadkan soonkan ka hadlayay uu doortay waxaa la geeyey
degmooyin kale baa la geeyey dad kale oo maaragtay ka yimid ogaadeniya baa la keenay dadka ay 7 sano ayay la joogeen dadka kolkaa dadkii ay dadkan doorteen dee 7 sano waxay ku maqnaayeen meelo kale gobolada kale ee soonka ama iyay ku maqnaayeen kililka marka dadkii intii badnayd waa lasoo bedelay dadkii hore annaga xagga iyaga loo soo bedelina lagama qaadin meeshii dadkii shaqo-aan bay biri dhaba joogaan marka waxa weeyaan ta u horeysa waxa weeye geel iyo adi xere lama wala geliyo maxaa yeele u isku joogjoogsanaya ka walaalahaya waxa weeye waxaan doonaynaa inay maaragtay na naga celiyo oo dadka iyaga wixii hadhay nanoo keenay intii badnaydba way noo joogtahay aan walaalnimada naga dhexayso ayaan doonaynaa marka dibicurashadaas waxa weeye annagu waxay nala tahay de maba curan be dibicurashadu waa maxay macnaheedaba waan garan weyey haddii ay tahay soomaali ha isdhex gasho oo maaragtay ha isbarata hadday tahay heerkii maaha la joogay heer dadku wax wala yaqaano soomaali hore u martay oo xeerar kaliya la wala leeyahay lama gaadhin weli iminka ciidamada la keene de taasina ma fiicno anagu ciidamo waan leenahay laakiin iskuma fiicno reer maaragtay isku fiican oo isdila soomaali ma aha laakiin gobolka dowlad baa ka jirta dowladdaas soo ma aha dadkeeda iyadu inay maamulato oo haddaanay dhibaato u keenin wixii isdhexgala iyo wixii horumar iyadaa mas-uuliyaddeeda saaran tahay ciddii la doortay dadka ay doortaan soonka ay doortabaa dee mas-uuliyaddaa leh laakiin iminka waa dad kale waxa xakuma hadday dee si fiican xukunka u socdo waxba ma ahaateen laakiin dee dad maaragtay dhaqankii iyo hidihii dadka baabi'inaya iyay noqotay taana dee ma yeelno waxaan weydiisanaynaa madaxweynaha inuu ciidamadan uu hadda keenana naga celiyo dadka iyagii maaragtay keeno dadkana uu geeyo meelihii ay ka yimaadeen ay u dhasheen waa intaa un weeye waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo dalka etoobiya guud ahaan waxaa ka jira isbeddel ra-iisul wasaare cusubaa la yeelatay wasiiraha la magacaabay nidaamkii hore ee jiray isbeddel baa ku socda isbeddelkaas soomaalidu diyaar ma u tahay inay ka faa'iidaysato waxa weeye siday uga faa'iidaysan karta waxa weeye waa inay wada hadasho etoobiya way wada hadashay ururka xakumi u wada hadlay oo tambuke markaa soomaali hadday wada hadlaynin oo xeer wada hadlaynayo ka wada hadlinaya uuna jirin waa qabaa'il weeye marka waxa weeye qabaa'ilku inuu isku yimaado oo xeer samaystay isago kolkaa sida uu u dhaqmayo isagoo raacayana maaragtay kani xeerka federaalka laakiin xeer hoosaad haddii la doonayo waa inuu maaragtay dee ay soomaali ka wada hadasho laakiin maaha inuu qof kaliyahay maaragtay uu yidhaahdo sidaadaad yeelaysiin ama reer u taliyo uu yidhaahdo anaa ku xakumaya taas waxa weeye dhibaataa ka imanaysa wayna ka timideen in oo soomaaliya way wada cabanaysaa gobolkani maaragtay waa gobol dib u hadhay dhibaatooyin badanna maaragtay ay noo geysteen dawladdan dhexe iminka 15 sano oo waxaa haysan jiray rag TPLF la yidhaaho oo maaragtay gobolka naga dhacay baa haysan jiray gobolkuna wuxuu soo noqday cabdi kolkii uu qabtay bay soomaali yeelatay haddii runta la doonayo marka waxa weeyaan waxa weeyan marka shaqaale lagama qori jirin belged ma lahayn shaqaale hadday ka shaqaynayeen etoobiyada kale unbuu ahaa kolka cabdi kolkuu yimiday dad soomaali buu qoray belgedna waa la helay dhibaatooyin badan hadduu sameeyena dhibaatooyin badan oo fiicanna uu sameeyo gobolka uu sameeyey taa waan garanaya aniga mamaha soomaali baa jirto waxa weeye nin baa nin caana u lisay wuxuu yidhi waryaa caanaha dantaana u dhan caanaha dantaana u dhan buu maxay ka dhigan tahay wax dantaada u dhan waxay ka dhigan tahay caanaha hambee haddaad hambeen weyada yaa kuu lisi cabdi waxaan leeyahay haddaad maaragtay tiil iyo hoor dambe naga doonaysid oo ciise laga doonayo waa in samaan uu ku baxa weeyaan uu naga qaado culayska kaasi waxa uu ahaa buux xuseen cumar guddoomiyaha xogaga isbahaysiga dimuqraadiga soomaalida etoobiya oo ku sugan magaalada addis ababa waxaa uu warramaya waryaheena maxamed colaad xasan halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa ka codsatay dhinacyadoo hubeysan inay u ogolaadaan galaangalka gargaarka bani-aadanimo kumanaan qof oo dagaalada dalkaasi ka socda ay barakiciyeen kuwaasi oo u baahan gargaar degdega
waryaheena liisa shalayn ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta UNHCR ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Maxamed Colaad Xasan mar kale waa kan. isku dhacyadii dhimashada dhaliyey ee u dhexeeyey kooxaha hubaysan ee gudaha iyo hareeraha magaalada koonfurta libiya ku taalla ee sabha ayaa ku qasbay dad lagu qiyaasay 1900 oo qoys iyo in ka badan 13,000 oo qof inay guryahooda ka barakacaan. afyeen u hadlay hay-adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yidhaahdo Andrej Mehejij ayaa sheegay in gobolkan ku yaala libiya looga baahan yahay gargaar bani'aadnimo oo degdega. waxa uu yidhi Mehejij, dadka reer libiya ee koonfurta ku barakacay waxay si weyn ugu baahan yihiin gargaar, hooy iyo alaabada asaasiga u ah nolosha sida joodarayaasha lagu seexdo, dermo iyo alaabta cuntada lagu karsado ama lagu cuno. waxaase xaaladda sii xumeeyey buu yidhi qaybtan libiya waxaa xadidan galaangalka gargaarka bini'aadnimo, xaaladduna waa mid aan caga adag ku taagnayn. dad badan ayaa gabaad u galay buu yidhi iskuullada, isbitaallada iyo dhismayaasha kale ee dadweynaha. libiya waxaa burburiyey kala qaybsanaan iyo colaad ka oognay tan iyo sannadkii 2011 markaasoo ay gaartay dabayshii gugii carabta ee lagu riday hogaamiyihii keli taliyaha ahaa mucamar al khadaafi ee markii dambena la dilay. dowlado iska soo horjeeda oo mid ka mida ay qaramada midoobe aqoonsan tahay iyo kooxo badan oo hubaysan ayaa bulshada waddankaasi ku haya qalalaaso iyo jahwareer. dagaalada qabaa'ilkuna waa kuwo joogto ah, gaar ahaan gobolka sabha oo 76 kilomitir koonfurta ka xiga magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Mehejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay awooday inay ka faa'iidaysato fursad ay heshay toddobaadkii lasoo dhaafay, iyadoo geysay magaalada Murkuuz gargaar si weyn loogu baahnaa oo loo qeybiyey 100 qoys oo soo barakacay. magaaladan oo loo arko inay ka mid tahay meelaha libiya uu ka jiro ka ganacsiga addoonsiga casrigan, waxay ku taallaa 135 kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada sabha. colaadda libiya ayaa salkicisay in ka badan 1 milyan iyo bar qof dalka libiya oo dhan. Mehejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay kordhisay gargaarkii ay libiya ugu tala gashay 300% bilihii u dambeeyey. sidaa daraaddeedna haddii ay galaangal hesho waxay gargaar gaarsiin kartaa buu yidhi dad badan oo u baahan. warbixintii wariyaha VOA Liisa Shalayn. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinayay. wahagaag haatanna waa xilligii ciyaaraha. xubintii ciyaaraha aanu eegno dalkan Maraykanka waxaa ka jira ciyaaro badan oo ka socday oo xagga kubadda kolayga ah oo haatan maraya wareegii ugu dambeeyey ama wareegyada isreebka. waryahayaga maxamuud mascade ayaa ciyaarahaasi qaar ka mida oo hadda soo gabagaboobay daawanayay. maxamuud qadka ayuu si toos ugu jiraa. maxamuud ma maqlaysaa? waxaad noo sheegtaa bal wixii ugu dambeeyey gaar ahaan ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Maraykanka. aad baad u mahadsan tahay. waa sidaas aad sheegtay, ciyaaraha isreebka ee kubadda kolayga dalkan Maraykanka ayaa kulamadii ugu horreeyey la ciyaaraya. kooxda kubadda kolayga ee Cleveland Cavaliers iyo Indiana Pacers ayaa goordhaweed ciyaar dhex martay soo gabagaboobay oo kulankii afaraad ayay ciyaarayeen. 2-1 ayay maraysay oo labadii kulan hore waxaa soo badisay kooxda Indiana, hal kulan Cleveland baa soo badisay. habeenkii xalay ahaana kulanka soo gabagaboobay waxaa badisay kooxda Cleveland Cavaliers oo 104 ayay ku badisay. sidaasina haatan afarta kulan oo ciyaareen 2-2 bareejo ayay marayaan. waxaa la isugu noqon doonaa guriga Cleveland oo kulanka shanaad la isku arki doono. kooxda magaaladan uu raadiyahani ka dhisan yahay ee Washington oo la yidhaahdo Washington Wizards ayaa waxa ay la kulmaysay iyana kulankii afraad kooxda Toronto Raptors. Toronto labadii lugood ay gurigeeda kusoo ciyaartay way badisay. labadii lagu ciyaaray Washingtonna kii ugu dambeeyey caawa ayay badisay oo 198 ayay Washington ku badisay. sidaas afarta kulan oo labadan kooxood ay ciyaareen waa 2-2. waxaa la isugu noqon doonaa kulanka shanaad magaalada Toronto. Golden State Warriors ayaa laga badiyey kulankii afaraad oo la ciyaarayay habeenkii xalay ahaa. 3 kulan oo hore ayay kooxdu soo badisay oo San Antonio ayaa caawa ka badisay. San Antonio waxay ka badbaaday inay harto oo kulanka shanaad waxa ay tegi doontaa guriga Golden State Warriors oo ka haddii ay badiso markaas San Antonio way hari doontaa. 3-1 ayayna haatan kala marayaan afartii kulan oo labadan kooxood ay ciyaareen. Milwaukee Bucks oo iyana markii la ciyaaraysa Celtic labadii kulan oo hore ee guriga Celtic lagaga soo badiyey ayaa gurigeeda labadii kulan ay ku ciyaartay labadiiba badisay. kii ugu dambeeyey
caawa ayay badisay oo waxa ay ku badisay 102 iyo 104 oo Milwaukee Bucks ay guusha ku raacday. sidaasina waxa ay haatan labadan kooxood ay kala leeyihiin 2-2 guul ah. kulanka shanaad ayaa Boston Celtics la isugu noqon doonaa colaado. waa mahadsantahay maxamuud. kulamadii kubadda cagta dhinaca kale haddaan eegno meelo kala duwan dunida ama Yurub haddii aan leed ka dhacay, maxaa aad nooga kordhin kartaa? waxaa ugu xiiso badan kulan dhex maray kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Napoli oo ka tirsan horyaalka waddankaasi ee Talyaaniga. colaado kulankaasi 90 daqiiqo markii uu marayay eber ayay haatan saacadii ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara Napoli ee Koulibaly ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda Napoli. Juventus horyaalka dalkaasi 4 dhibcood ku hogaaminaysay, 3 ayaa laga soo jaray oo labadan kooxood haatan way isku dhagan yihiin 85 iyo 84 ay kala leeyihiin oo Juventus ayaa 1 dhibic sarreysa. aan kuugu daray Juventus gurigeeda ayaa lagaga adkaaday. marka guusha ay Napoli qaadatay waxay noqon doontaa mid cajiiba. dhanka kale iyo waddanka Ingiriiskana kooxda Chelsea ayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta u soo gudubtay oo 2-0 Southampton ayay kaga badisay. Arsenal 4-1 West Ham ayay horyaalka dalka Ingiriiska ku garaacday. macallinkooda Arsene Wengerna waxa uu toddobaadkan sheegay inuu ciyaaraha ka fariisanayo kulankan oo uu badiyey ciyaartoydiisa. waxaad moodaa in ay u soo dharxiteen macallinkooda muddada dheer kooxda joogay inay si wanaagsan u sagootiyaan. waa mahadsantahay maxamuud. waxaan qiyaasayaa in taageerayaasha kooxda Arsenalna ay yihiin kuwa ugu dulqaadka badan marka la eego xagga daawashada ciyaaraha. aniga iyo Haruun naga soo qaad. aad badan waasatahay. maxamuud Mascade oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota si toos ugu jiray barnaamijka ciyaarahana la socodsiinaya iyo kaasa ahaa. markana waa dhinacii heesaha waxaan idiin haynaa heestan dad badan ay